محمد حسن علمي waxa uu dhimirka ka jireynaa in ka badan muddo ku siman 40 sano sida ay noo sheegtay qofka kaliya xaaladiisa caafimaad la tacaalay muddadaasi dheer wixii ka dambeeyay dhalinyaronimadiisii waxa uu ahaa mid la saaxiiba xanuunka dhimirka ama waalida waqti xaadirkan qof walba oo arka muuqaalkiisa waxa uu noqonayaa mid ku reeba naxdin iyo argagax maadaama walaashii Saara Xasan Cilmi oo qootolyoonkiisa ka raadiso caana ay ku iibiso suuqyada Laascaanood waxayna mararka qaar kala kulantaa dhibanahan markay wax siinayso ama ay rabto inay guriga ka hagaajiso gacan ka hadal taasoo keentay in dhibanahan xanuun kala jiifa silsilad lagaga jabiyo ama lagaga xidho afarta adin si ay uga badbaasatay nafteeda dunidan aynu ku noolnahay ilaahuma dhammaystirin dad ilaa dooyo nimcada iyo nolosha balse nimco walba nusqaanteeda ayay leedahay 40 sano Maxamed Xasan Cilmi xanuunka dhimirka uu la nool yahay hooyo Saara Xasan Cilmi oo ah walaashii ayaa warbixin guud inooga siin doonta bal 40 sano waayihii iyo gardaamooyin kala duwan ay ka soo martay iyo sidoo kale xanuunka dhimirka xilliga haleelay iyo dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo martay hooyo anigoo ah Saara Xasan Cilmi oo ka hadlaya duruufta iyo dhibta iga haysata ninka waalan ee halka ku xidhan aad aragteen waxaan ka hadlayaa hooyo dhibaatooyinka faraha badan aan ku qabo ee 40 sano waala maalintu dhalinyaro ahaa oo xoogiisa ugu fiicnaan maqaadiirtu haleeshay ragii qaban lahaa iyo wiilasha qaban lahaa ee walaalihiina qadar iska heshay waxa weeyaan aan dhibaatooyin fara badan dilmo marada hadaan xijaabka ugu ceejirayo dhibaato aad iyo aad u fara badan duruufteeda aad iyo aad u adkaatay dhaqtar aanan geynin raash aanan geynin meel kale aanan geynin ay igu kaliftay duruufta iyo waqti hagaag hooyo Saara Xasan Cilmi waxay ka sheekeynaysaa duruufta dhabta ah Maxamed Xasan Cilmi iyo waayaha kala duwan ay ka soo martay waa duun kale iyo xaalad kale inta noolnahay duunida ayaa wax la isku yahay hooyo Saara Xasan Cilmi runtii say ka dhawaajisayba waxay gelinka hore iyo gelinka dambe iyo mararka qaarkood ugu shaqo tagtaa si ay nolol maalmeedkiisa uga soo saarto dhibanahan 40 sano nool xanuunka dhimirka hooyo Saara Xasan Cilmi koob caana ayay suuqa ama bartanka magaalada Laascaanood ku iibisaa iyadoo aysan ka fakareen ma laga iibsan doona amise ma ka soo saari doontaa waxyaabaha halkan aad ku qodan doonto waxa xusid mudan in hooyo Saara ay sheegtay in aanay jirin wax qaraabo dhow ah oo ka gacan siiya la tacaalada dhibanahan u xirxiran xanuunka 40 sano jirsaday saan wax badan ugu ogaana hadaba xaaladda nololeed ee labada ruux ayaanu ku booqanay hoyga ay ka degan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool markaad gashid gudaha hoygaasi waxaad la kulmaysaa ama aad arkaysaa nolosha adag ay ku nool yihiin labadaasi ruux Xasan Cilmi mar walba waa sidan محمد حسن ريال ودون كلا iyo xaalad kale inta noolnahay dunida ayaa wax la isku yahay walaal wehel iyo waxtar bal isugu yahay waxaan rabnaa hooyo Saara Xasan Cilmi inaan si guud ugu kacno oo muuqaalkan hadii aynu meel kala gaarsiin karno gaarsiino si guud hadaynu uga qayb qaadan karno aynu uga qayb qaadano inta damiirkooda nool yahay haddaba documentary-gan waxaan idinku soo gudbinay si aad xaalada dhabta ah aan ula dareeno idinkuna aad la dareen noqotaan walaalkaaga dhabta ah ee baahan ama walaalkaaga dhabta ah ee xaalada duruufeed ku sugan haddaba hooyo Saara Xasan Cilmi waxaan iyadana markan ka soo diyaarin doonaa baan rabnaa inaan soo raacdaan bal xaalada suuqa iyo sida caanaha suuqa ugu iibiso
yimaado dhibanahan 40 sano xanuunsanayay katiinuhuna wehelka u ahaayeen halka ruux ee noloshiisa ku tiirsan tahay waa Sahre waxay sheegtay in waqtigan ay soo food saareen xanuun ay ugu horeyso tamardari dhanka indhaha ama aragga taasoo adkeyn doonta inay dib uga sii shaqeyso suuqyada magaalada Laascaanood taasoo awalba ay ganacsi buuran ku haysan haddaba ummadda Soomaaliyeed ayay fariintan u diraysaa si ay uga gargaaraan xaaladdan ay ku sugan yihiin labadaasi ruux ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay hooyo Saare Xasan Cilmi oo halkan maalin walba u timaada say masaariiftiisa uga soo saari lahayd Maxamed Xasan Cilmi oo walaalkeeda oo aan horeba ka soo sheegnay xanuunka dhimirka 40 sano wax ku dhow la nool haddaba koombada caanaha gacanteeda ku hayso ayay maalin walba halkan masaariiftiisa uga baadi doontaa iyadoo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo marto haddaba mid iyo laba dhibaatooyinka ay ka soo marto fariinta ay bulshada u dirayso ayaan rabaa halkan inaan markana aan uga dubno bulshada saan markii horeba uga hadlay waxaan ku codsanayaa walaalaha ee meel kasta ay joogto ninkaan inta badan ku soo dhibaataysnaa rafaadka adduunkana ku qabay laamagaana muddo dheeraan u soo fadhiyey indhahayguna ku naaquseen kuna beelay maskaxdii dhagahayguna ku cuslaadeen inay iga caawiyaan waxaan dhakhtar ugu dhigo ay iga soo caawiyaan mid iyo laba dhibaatooyinkaad ka soo martay dhibaatooyinka ka soo maray waa dulmo gabdhaha ila fadhiya markaati iyo marag bay ka yihiin in xijaabka igu ceejiyay inuu maxay iga dhex saaro iyadoo say igu ceejinayaan iska saaro dhagaxa cuntada wax walba uu say igu shubo igu dhagxiyo igu dilo waxaan u maadnaqayaa wareeya bidhaan ilaahay baa mahadle oo in badan igu soo lugay isagoo halaabay ama si aan maqanahay oo maxay tahay baadidoonkiisa jiro baan mahad u celinayaa inta islaamka waxaan ka codsanayaa inay iga soo caawiyaan ninka buka muddada aad iyo aad u dheer ee aan la dhibaataysnahay rafaadka adduunkan aan kula noolahay waxa aan uga waxeeyaa waxna ay koobka caanaha ay yahay waxaan ka heli karaana iska adag tahay